tobankii bishii afraad ayay ahayd markii dil iyo kubsi wadare lagu geystay gudaha magaalada Garowe allaha u naxariistay marxuumad Hodan Axmed Maxamuud. hay'adaha dambi baarista Puntland ayaa soo gabagabay baarista kiiskan soddonkii bishii 12/2019 waxayna xafiiska xilaalinta kiiskan ku soo eedeysay 7 qof oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen kiiskan. dhageysiga garmaqalka kiiska Hodan Axmed Maxamuud ayaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal maanta u fariisatay markii labaad. xiraaliyaha guud ee dowladda Puntland Maxamuud Xasan Aw Cismaan ayaa ugu horreyn maxkamadda ka hor akhriyay warqad codsi ah ay xafiiska xilaalinta Puntland u soo gudbiyeen ehelada marxuumad Hodan Axmed. بعد السلام مدن قدومية waxaan saaka gacanta ku hayaa galkii marxuumad Hodan Axmed Maxamed. kayskaasu muddo ayaa dhowr jeer ayay waxaa dhacay in kiiskaa la mudeeyey ayna soo xaadiri waayeen dadkii dhibanayaasha ahaa ilaa 3 goor ilaa 4 goor waan la xiriirnay cid walba oo ay khusaysay ilaahay amarkii kama dhigin in ay yimaadaan dadkii dhibanayaasha kiiska ka ahaa. ugu dambayn saaka waxaa noo yimi dhibanayaal codsi waxaa soo qoray Bashiir Rabadoon Bashiir Maxamuud Dalmar iyo Bashiir Axmed Maxamed walaalka dhibanaha iyo Faarax Axmed Maxamed walaalka dhibanaha annagoo ah ehelka dhibanaha marxuumad Hodan Axmed Maxamed Shanlayste waxaan xafiiska xeeraarinta si sharaf leh iyo xushmad leh uga codsanaynaa in dib loogu dhigo kiiska aanu darafka ka nahay oo xafiiska xeeraarinta gacanta ku hayso. sababta aanu codsanayno in dib loogu dhigana waa baxa dhibanaha sare oo hadda jira meel durugsan. siyaasarteed waxaanu xafiiska xeeraarinta ka codsanaynaa in dacwadayada dib loogu dhigo muddo 4 beri ah oo ka bilaabanaysa 22-ka kuna eg 26. waxaanu ballan qaadanaynaa inaan ku imaanayno muddada aanu codsanay. mudana gudoomiye garsoorayaal anigu waxaan aqbalay codsiga dhibanayaha 4 casho 4 cashana ay noqoto maalintii ugu dambeysay maadaama kiiska muddo 3 hore 4 jeer hore kiiska la mudeeyay maantana ay gabadha ay dhibanayaasheeda ay 4 beri codsadeen waxaan aniguna ma codsanay idinka codsanayaa in 4 beri la siiyo si kiiska hadhow aan cidna loogu eedayn ka maqnaashiis. intaasi kadib maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa su'aalo ku aadan sababaha keena dib u dhaca kiiska ee ka yimaada dhinaca ehelada marxuumad Hodan Axmed waxay weydiisay walaalka la dhashay marxuumad Hodan. sababta waxa weeye waa waliyo damka oo aabaheeda oo aanu ku guuleysan weyno inuu noo yimaado intaasba. waxaan ku guuleysanaynaa oo aanu hubnaa inta aanu insha Allah inta aanu maraka qabsanay in aan lagu waayahay baan ku xaqiiqaysana. ma iman waayayo xaqiiq insha Allah maya. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal Cabdinuur Jaamac Xuseen ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda isagoona sheegay in 26 bisha 2020 dib u furmi doono markii saddexaad dhageysiga kiiskan. xuquuq ay leeyihiin dhimashada jirto labada darafba oo dadka xiran iyo ehliyadooda iyo dadka hadda laga dhintay oo dhibanayaashaaba annagu codsiga xiraarinta waa aqbalay. muddadiisuna waa 4 maanta bishu waa 22 4 soo socota weey insha Allah taala wabillahi tawfiiq. Shamaakad Wadi Jaamac warbaahinta dowladda Puntland Garowe.